waaqaan gaarto waa la guursan karaa ma aha guurku waa arrin muhiim ah oo mas'uuliyad ah mas'uuliyadaas yaa qaadi kara marka waxa qaadi kara qofka gaaray arrinta rushdiga la yiraahdo 14 sano iyo bar anoo jira baan aroos anigoo ka cararaya qarjaaf aniga eedda waxaan saarayaa waalidiinta aanan ka warqabin carruurtooda waxaa lagu leeyahay heblo waa baxday xaggee u baxday war ma maharsatay oo masaafay u baxday gabar rag ka guurso amba rab cidla waxaan leeyahay aniga guurka oo gabdhaha yaryar aad aan u taageersanahay aan ku raaxsanahay barnaamijkan hay'adda ay keentane wacyigelintani waan arki doonaa waxay naga bedeshay insha allahu tacaala maadaama aan yaraay oo waxaydiisa qalbigayga hoos u dhacsan hadda naago inaan noqolaatay 4 jir ahay xaas aan leeyahay ilmo ma jeclato ka dambe ina waxaas qaladkaas oo kale oo dhaco السلام عليكم دمان كسو qaybgalayaasha barnaamijkani maanta noogu furmay degmada Warshiiq aad ayaan ugu faraxsanahay in barnaamijkani la xiriira ka hortagga guurka gabdhaha da'da yar tani wixii ka dambeeyay burburkaasi markuu dalka ka dhacay ma jirin in caruurta Soomaaliyeed wax barasho helaan ku filan in maxay daryeel ay helaan waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa waxaan leenahay sawja iyo hay'adaha la shaqeeyaba ku soo dhawaada degmadiina waay dadkana waa dad u baahan baraarujin iyo wacyigelin qaanuunku wuxuu leeyahay laba qaybood ayuu u qaybiyaa qofku markuu 14 sano jiro haddii xataa uu dambiga lama xiri karo sharciga wax ciqaab ah oo lagu qaadi karo ma jiro markii 18 sano uu gaaro ciqaabta lagu qaadi karo wali way yartahay ciqaabta lagu qaadi karo qaanuunku wuxuu leeyahay waxa lagu qaadi karaa ugu badan waa dhowr bilood oo aan la xirin waliba ee qofkaas asaga oo banaanka jooga qof mas'uul looga dhigayo haddii aad fiiriso ilaahay quraankiisa maad ka fiiriso ilaahay quraanku wuxuu ku leeyahay wabtalul yataama hatta idha balagu nikaha fa in anastu minhum rushdan ayuu ilaahay ku tilmaamay rushdigaas marka waa muhiim rushdigaas muxuu yahay qofku inuu noqdo qof awoodi kara in uu wax qabto ama mas'uuliyad qaado waxaan jecelnahay hadoo ilaahay ka raali noqdo dhibaatada guurka gabdhaha yaryar insha Allah kulay waa laga joogaa waan la sii kala falaqay doonaa ugu yaraan dadkii hal laga wacyi galiyo hal loo sheego qofka calafkiisu gala awla la celin karo laakiin hal laga wacyi galiyo waxaan nahay madhabta Sheekh Shaafici waxyaalo badan oo calaamad ah ee shariicada soo qaadataa waa qaangaar guur kaliya ma aha qaangaarku waa qofka waajibka islaamiga soo ku maragtay taklufadeeda si ku raacdo ma aha kaliya waa la guursan karaa kaliya ma aha waxyaabaha dhaliyo oo sababa caruurnimada guurka waxaa laga yaabaa gabadha inay ka dhalatay qoys sabool ah laga yaabaa gabadhaas in waalidkeed ay cadaadiyaan si ay waalidkaas ay adeega ay u dirayaan ay dhibsanayso oo maaragtay ugu diranayaan howlaha marmar waxay keenaya colaadaha oo qofka in waxaa laga yaabaa colaadihii dhacdaradood idii waalidkeed ay ka dhunto aniga raalahanteed waxaan leeyahay gabdhaha guurka waxa u kalifan iyo koo yaryar inayna haysanin waxbarasho markaan soo laabto barnaamijka 3 maalmood noo socday insha Allah maanta aan soo gabagabeysanaynaa soo xirinaynaa wuu soo laaban doonaa haddana mid kale waxa imaan doona oo looga hadlayo gudniinka dhibaatada uu leeyahay waa dareemi kartiin adiga haddaa khasaartay gabdhihiin ha khasaarinina Nangisa bishara dale Banangisa bishara